hawsha lagu dardargelinayo dhismaha magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ay hormuudka ka yihiin dhismaha wadooyinka iyo adeegyada kaabayaasha dhaqaalaha dalka waa heshiis mataaneyn ah oo ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo soo martay dhaawacyo kala duwan welina qaarkood ay ka sii muuqanayaan raadadkoodii hadda waxaad moodaa in ay ka soo bogsanayso inkastoo dadaalka Muqdisho lagu dhisayo laguna casriyeynayo uusan ku ekeyn oo kaliya wadooyinka dhismahooda. sidoo kale waxaa jira qorshe ballaaran oo dib lagu casriyeynayo garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo sidoo kale dekedda caalamiga ah ee magaalada tan. dadweynaha Soomaaliyeed ee caasimadda degan waxay isweydiinayaan Muqdisho iyo Istanbul oo Turkiga ah sida lagu gaari karo mataanintooda iyadoo taasi ay jirto haddana waxaa jira dad kale oo iyana qaba ama ay ka muuqato rajadaasi in la gaari karo qaybo badan oo magaalada Muqdisho ah wadooyinkeeda iyo meelaha mataaninta hormuudka ka ah oo aan booqasho ku tagay ayaan kula kulmay sawirro kala duwan kuwa ayaa waxay qaarkood muujinayeen rajada dib u dhisidda Muqdisho iyo sidoo kale la wadaagida mataaninta magaalada Muqdisho ay la wadaagayso magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. meelaha aan tagay waxaa ka mid ahaa wadooyinka dhismahooda uu socdo ee hadda laamiga la saarayo oo ay ka shaqeynayaan shirkadaha dhismaha wadanka Turkiga. wadadan laamiga ah waxay ka mid tahay wadooyinka dowladda Turkiga ay dhismaha ka bilaabeen sida daawadayaal. sidoo kale wadadan waxay ka mid tahay ama ay tahay wadooyinka ka soo baxa isgoyska korontada ee magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir. sidoo kale wadooyinkani waxay ka mid yihiin wadooyinka dowladda Turkiga ay doonayaan gaar ahaan dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga in ay ku mataaneeyaan magaalooyinka Muqdisho iyo Turkiga oo hadda mataaneynteeda ay ka bilaabatay dardargelinteeda ama dib u dhiskeeda magaalada Muqdisho qaybo badan oo ka mid ah. sidoo kale waxaa jira qaybo kale oo wadooyinka magaalada ku yaala oo iyana burbur lixaad oo ka muuqda saacadii la doonayo in wadooyinka soo socda ay gaaraan iyadoo laamiga qaybta la dhisayo ay si caadi ah u isticmaalayaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan haddana weli waxaa ka barbar socda dhismaha wadada laamiga labaad. intii ay socotay booqashada mataaninta Muqdisho iyo Istanbul ayaan la kulmay dad kala duwan oo iiga sheekeeyay aragtidooda arintan dib u dhiska ku aadan iyaga oo sidoo kale ka waramaya sida ay ku habboon tahay hawshaani waa ayna soo dhaweeyeen dib u dhiska laamiyada magaalada caasimadda ee Muqdisho. baabuurtu 24 saac markaan socono way halaabi jirtay ninkaas dib doorayaasha iyo waxyaabo badan ka bedeli jiray wadadan markaan marayno waxaan dareemayaa raaxo sababtoo ah gaarigu inuu biyo oo marayo ayaan isheegay marwuu jiray laakiin hadda wax oo isheegay kama dareemayno marka aad u soo dhaweynaa qolooyinkan ugu saaciday inay wadooyinka noo sameeyaan si macnaha baabuurtan tahay waxaan arkaysaa baabuur oo markii dekedaan ka soo qaadno adiga hal sano ka bacdi waxaan arkaynaa gaarigeena oo finish noqday marka waxaan dareensanahay haddii wadooyinka saan uu wada dhigo in gaarigeena xataa 10 sano gaari karo marka haddii isagana aad u soo dhaweeyaan marka wadooyinka saan u sameeyay wax walba lagu dadaalo meesha doonta inuu ka safrto Istanbul iyo Washington iyo New York meesha doonta ka safrto lagu dadaalo jadwal dhow sidoo anaka sidana Soomaaliya hadana baadi ayaa naga lunta baadina ma hayna laakiin raadkeeda ay helaan baadi naga lunta waxay dawlad tani naga jirtay ma garin laakiin raadkeeda ay helaan raadka markii lagu dhigo lagu degdego oo la isku taxalluj wal helaya baadi raadka ilaaliso tiraa meesha maralku marneefka halka ku dhaqaal ka soo maray meel loo gaar marka daba taagan oo helaysa laakiin dawladda ma hayna raadkeena mar kale ayaan weydiiyay qofkan oo aan adeegsan magaciisa sida mustaqbalka lagu gaari karo mataaninta Muqdisho iyo Istanbul waxa uu hadalkiisa intaas sii raacinaya marka uu su'aashaasi iga jawaabay in Soomaalida ay qaybtooda ka qaataan dib u dhiska dalkooda. mustaqbalka la gaari kara aad iyo aad loo gaari kara dadka Soomaaliyeed waxa waaye waxa wadana nabada wadana midda kale wadooyinkan waxay ka mid tahay nabada ka mid tahay sababtoo laamiga sanad loo dhiso meelaha qaarkood xataa in wax la geliyo iyo in hawaay sheegada ama darro ay ka timaado xataa waa sheega aad loo xakameeyo booliisku waa ku dhibaatoodan wadooyinka duduleela waxa la geli karaa soo cawada meelka wax la geliyo laakiin haddii si fiican loo dhiso waa la dareemayaa wadooda inay nadiif tahay meesha oo marka cilad ka timaado amba helaysan amba dhibaato geysan waa la dareemi karaa in wax ku jira amba wax laga dareemi karaa ama darro awgeed laakiin haddii wadadu toos wada jaban tahay amaankooda lama sugi karo marka wadada la dhiso xataa waxay ka mid tahay ammaanka magaalada wax loo qabtay ka mid tahay marka aad u soo dhaweeyna waana mantaano noqonaya insha Allah
waxaan ka rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed igana inay waxawaaye ku dhiirigeliyaan dadka wadooyinka dhisaya waxaad arkaysaa marka qaarkood wadooyinka markaa maro dadka wadooyinka dhisaya dhibaato badan xitaa ku qabaan iyo laftooda waan aragnay anaguna waxa waaye sheegayna inaan ku saacidno bawrida haddaan nahay say macnaha wadooyinka noogu dhisaan annagana bawrtada tahay u lahaato saas ayaan u soo dhaweynaya garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho waxa uu qayb ka yahay heshiiska mataaniinta ee muqdisho iyo istanbul 15kii bishan waxaa maamulka garoonka la wareegtay shirkadda Fifori ee waddanka Turkiga waxayna soo bandhigtay shirkadaasi naqshada ay ku doonayso in ay ku dhisto guud ahaan garoonka diyaaradaha ee muqdisho muddo aan sida u badnayn kadib sidoo kale dekadda caalamiga ah ee magaalada muqdisho ayaa ka mid ah mataaniinta magaalooyinka istanbul iyo muqdisho ee mustaqbalka dhow iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo tagay Turkiga madaxda dalkaasi ay sidoo kale la gaareen heshiis gobolada Soomaaliya oo dhan dawladda Turkiga ay ugu bilaabayso mashaariic dib u dhis ah dhanka kale haddii aan intaa uga gudubno dhismaha bilowga ee wadooyinka laamiga ee muqdisho waxaa iyana jira wadooyin badan oo uu weli burbur lixaad leh ka muuqdo inkastoo maamulada degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood ay sameeyeen dadaal wadooyinka burburkooda xal loogu helayo ilaa dhowr isgoos oo ay ka mid yihiin wadada labaad ee Bakaaraha oo burbur lixaad leh uu ka muuqdo iyo sidoo kale isgooska Tarboonka ee magaalada Muqdisho oo isaguna ahaa sida tan halkan waa wadada ama isgooska Tarboonka ee magaalada Muqdisho waxa uu ka mid yahay isgoosida magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa ugu caansan ama ugu shaqada badan haddana waxaad arkaysaa sawirka ugu muuqanaya burbur lixaad leh iyadoo aysan jirin tan iyo markii dib ay dadku ugu soo laabteen wadooyinkan kadibna ay ka bilaabeen shaqooyinkii gaar ahaan isticmaalka gaadiidka dadweynaha kuwa gaarka loo leeyahay ma jirin cid si gaar ah dayactir ugu sameysay inkastoo maamulada qaar ama kuwa degmooyinka ay isku day la xiriira in wadooyinka ay wax ka qabtaan ay isku dayeen waxaana isgooskan Tarboonka oo ah mid caan isla markaana ballaaran isla markaana dhaca qaybta qorudhac ee magaalada Muqdisho oo mataan leeyahay isgooska wadada wadnaha ee magaalada Muqdisho waxaa la oran karaa waxaa soo muuqanaysa rajada higsiga Soomaaliya ee dib loogu dhisayo dad kala duwan ayaana aragti mustaqbal leh ka qaba arintani 12kii bishan ayaa mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxa uu Muqdisho ku soo bandhigay higsiga Soomaaliya ee 2035 oo uu la jeeday sida dalkeena uu noqon karo waqtigaasi marka la gaaro waa 22 sano kadib waa xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow mataaniinta magaalooyinka Muqdisho Istanbul oo caasimadda Soomaaliya iyo sidoo kale caasimadda labaad ee waddanka Turkiga waa heshiis ay wada gaareen dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Turkiga kaas oo mustaqbalka lagu doonayo in magaalada tan ee Muqdisho lagu gaarsiiyo in ay wakaato ama dhismaha caasimadda labaad ee waddanka Turkiga ee Istanbul waxaana muuqata rajada la xiriirta in la gaarsiiyo magaalada Muqdisho mustaqbalka higsigaasi فيصل موسى محمد تلفزيون قرن الصومالي